حديث كأبي هريرة ورني البخاري كسبنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام آخر الزمان كوحي من دونا وقت يوقف قآن وأبي لين حوله قادنا أيام حلال بمسوا حرام طب الله قرية يا أبا هذا بكتير هذا المسكت يسوى حرام ضد بدن بحكون حرام معايا يا إما كمان فرصتها عليه شان يسوى هدو ترى يقولين مركب فتنة آخر الزمان كذلك كل عيسى أيه كم تهي معاسي حرام marka xaaraantu cuqubooyinka ay leedahay waxa kamid ah ducada iyo qofkii aan laga aqbalin xadiidkii wada haysaa nabigu sidee ducada looga aqbalaya qofkii xaaraanta ku xeernay waxa kamid ah amalkii saalix ahaa oo aan laga aqbalin sadaqada wuxuu ilaahay aqbalata ilaahay waa tayiba wixii tayibun buu aqbalaa sadaqa iyo deeq laga keenay xaaraana ilaahay ma aqbalo waxay kamid tahay asbaabta keenta cadaab qabriga rasuulka waxa la tusiyay sallallahu alayhi wasallam habeenada kamid oo la dheelmiyay wabi dhiigan in dhex taagan oo dhagax lagu garaacayo malaa'igtu waxay u sheegeen kii riba cunaha ay baasha ribada la macaasade la iska dayn kari laay waxay ka kaxaysaa xaaraanta xoolaha la hayo barakada labada qof wax kala iibsanaya haday run sheegaan xaqiiqadana cadeeyaan ilaahay wuu barakeeyaa beecooda hadii ay wax qarqariyaan muhiqat barakatu bay'ihima iibkooda barakada waa laga qaadaa ila mid ba xaraan isticmaalaya خاتمدنا إلهي وكحمية وخاتمده وسيجا يا قف وهديه وحرام عميه ولا شهاده مركز صبر ترينيا وجاجالينيا وحا أيدشا نفط عاصماتك يا عرورته أنت وا نيكي جبيه وحول عقوبة هالك لو قال يعوكه ودا عرورته كلا يساكي عنا باس لما أجنو كجورا يا ضد كقرينا يا عذرهم بهاي فرمسي متاجنا يا دختر فرمسي يا دخترون متاجنا يا isaga iyo habartiisa iyo ciyalkiisu way sii socdaan way soo socdaan go'an baab bay ku jiraan inna rabbaka la bil mursad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa adigu daldalaysa xaaraanto iskama arkayside ilaahayna wuu ku daba taagay inna rabbaka la bil mursad mursadku waxa weey ilaahay oo ku arkayo ku eegaya oo ku ilaalinayo adigu aanad ogeyn iska ilaalinayn marka caruurtii iyo iyagoo laga yaabo caruurtuna inay ku kalifaan iyo reer inama amwaalukum wa awlaadukum fitna wallahu indahu ajrun azim intuu leeyahay balqani ka dhigo dhaxal uga tago dadka la tartamo kan yeer ayuu rasaynaya baash iyo daalalaho duuniyo laho kal laho dabada markaas xagga dambe isaga lagu bukaasaya almuhim waqtiyadan dambe sahara aynu sheegnay waa fitna aad u badan marka in laga feejignaado oo qofkuna uu ku xisaabtamo xalaasha inuu ku dadaalo si uu u badbaadi karo adduun iyo aakhiraba وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى